asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan asxaabta ku xiran janalka fifa soomaaliya iyo kuwa kusoo xirmi doonaba. Marka hore inta aan guda gelin barnaamijka waxaan idinka codsanayaa in janalka haddii aad ku cusubtihiin aad saartaan subscribe laagna dhahdaan. Kuwa hore u dhahan waan mahadcelinayaa, kuwa dhihi doonaan waan u mahadcelinayaa. Dhammaan waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin sida wanaagsan iyo soo dhaweynta wanaagsan ee aad samayseen. Kusoo dhawaada mar kale musalsalkii afarta walaal qaybtiisii 6aad. Shalay waxay noo mareysay tolga oo iskoolka laga ceeriyay. Waa ninka aragtaan wejigiisa maanta saaran shaashada. Markii la ceeriyay kadib waxaa isu soo haray afartii walaal, waa Cumar iyo Qadiir iyo Aasiya, iyo waxaa isu soo haray Droog iyo walaashiisa Maliza oo jecel Qadiir, iyo labada la ilma adeerka ahayd afarta walaal waa Olijan iyo Ebek. Markii ay soo hareen halkaas gabdhihii dhibta laga badbaadiyey, horena dhibka loogu geystay, laakiin hadda walaalahooda ay badbaadiyeen sida anjalka ku daawateenba videoga hadda maanta ahaa ku daawateen. Gabdhihii waxay bilaabayaan inay u mahadceliyaan wiilasha guud ahaan, ayagoo dhahaya walaalaheena waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad sharafteena u soo celiseen. Ayay markii ay u mahadceliyaan kadib waxaa la hadlaya Qadiir, wuxuu leeyahay annaga ma aha dadka idinka mudan in aad u mahadcelisaan, ee waa qofka mudan in loo mahadceliyo Droog oo ah nin geesi ah, run ahaantiina walaashay aan ku aamini karo nafsadeeda, waana ninka maanta garabka nagu siiyey ninkan tolga in aan ka aarsano sharaftii walaalaheena oo ku dheeran aan dib uga soo ceshano. Gabdhihii run ahaantii si qaas ah ayay markaas waxay ugu mahadcelinayaan ninkii la dhahayay Droog oo ah Aasiya saaxiibkeed. Markii ay u mahadceliyaan kadib, Qadiir saaxiibadiisa Maliza oo la dhalatay Droog ayuu gacanta qabsanayaa. Wuxuu leeyahay Droog, waxaan kugu ogahay walaashay inaad ahaatay garabkeeda, qof kale ammaanadiisa maaha, walaashay iyo xafid. Halkii ayay Aasiya iyo Droogna laabta isgashanayaan, meeshin ay ka dhaqaaqayaan. Markii ay dhaqaaqaan kadib waxay bilaabayaan amoore in ay Maliza u raacdo maqaaxidii Qadiir. Kadib iyadoo maqaaxida la fadhida Aasiya iyo Droogna ay taagan yihiin banaanka macadka, ayay waxay arkeen Aasiya iyadoo gacmaha ka haysto Droog, odagii dhalay Maliza iyo Droog dhalay Caakif. Markii aragtay ayay leedahay aabbaha ayaa soo socdo, sidaana ma anfacaysay, gacmaha ii sii daa. Odagii kuwaan uma jeedo Aasiya iyo wiilkiisa, wuxuu il gaar ah ku fiirinayay gabadhiisii oo diiday cuntadii jecel ay u qabto, micnaha Qadiir dartiisa cuntadii waa u diidaa tiri, si micnaha taladii uu siiyey walaalkeed Droog uu siiya sida aheeday in cuntada ay diido iyadoo baahan iyo isxakameynaysa. sida arkayseenba waa barnaamij cajiib leh oo ahaa. Gabadhii odaga arkaa, markuu arko wuu baxaa, meeshuu tagahay gabadheydii maanta waa shidan tahay, waxaa cunaya uu yidhi mataqaanaa alaabtaada meeshaan iska rugehe. Cuntada guriga markaad diidaysa ilaa waxaad usoo ordaysay midaan maqaayadaad baratay oo saaxiibkaa ku siinaa soo maahan, waad fiican tahay, anigaad ba iga dhaadhicinaya cunto ma cunaya oo waa baahanahay, saanaadna isaga buuxinay. Run ahaantii gabadhii aabbaheed iyada hoos ay isugu dhigayaan. Kadib Qadiir ayuu la hadlaa, wuxuu leeyahay anigo inaad gabadheedii nabadgelido ayaan mataqaanaa rajeynayaa oo faraaciga. Odagii Caakif Qadiir ayuu leeyahay niyahow gabadhan faraaciga qaad, dadkiina faqiiriinta ah waan ogahay inaad kusoo hoos gambataan dadka maatada ah ee hantida leh sida dumarka iyo carruurta oo kaleetood. Marka inaad ii deyso gabadheeda isku day. Wuxuu leeyahay aniga gabartaada wax dhibaataa kuma hayo, mana doonayo hantiteeda, uguma soo gambanaya hantidaada in aan ila madaxeeda ku cuno, laakiin saaxiibo oo qura ayaan nahay, macadkaas ayay dhigataa, anigana maqaayadan ayaan ka shaqeeyaa, sidaas ayaan ku sheekaysanaa, laakiin wax kale oo naga dhexeeya ma laha. Waayahay waan arki doonaa ayuu odagii kaga tagaa Qadiir. Laakiin ma isweydiiseen ninkii tolga ahaa ee laga ceeriyey iskuulka waxa uu qorsheynayo iyo waxa uu damacsan yahay in uu sameeyo.
ninkii wuxuu bilaabay in xeebta uu qore u qaato oo ku tababarta buufina qaabka loo tooga doono oo u tooga doono afarta walaal iyo daroog dadka cadowgiisa ahaa iskoolka ceeriye. meeshii ayuu wuxuu ka wacaa asigoo joogo yarkii saaxiibada ay ahaayeen beeg ayaa dhahaya niyo maxay tahay qorshaha aad damacsan tahay iyo xabadahan iyo balaayada aad gacanta ku hayso. wuxuu leeyahay niyow indhahaada wax ku arki doontaa, laakiin hadda kuma sheegaya wax aan damacsanahay, waana mar kale.